markaan aan soo qaadano saaxiibka Nathan la gadgaalay saaka dhanba xoogaa waxaan u soo daa waxa isla review-ga Thamud waa soo dhaado Thamud aan wadanin saaxiibada u tagayna isla Thamud waa gadgaalay waxaan isdhahay adoo amaantaan caadi ah oo burura soo galmeesh maxaa soo galaabo laba xidig iyo bar 2.25 saddex xidig hal shabakada ka siiso oo talugu almost 325 shabakado talugu ayaa soo fiiriyay Nathan marka waxa waa biswa salima asraa iska shiidaniyo iyo cabitaanka iska gala wax kale aan ku dhigi karo malakanne hadii hadana talugu waxa adduun wuxuu film negativity laga faafiyay maba gadmaayo waxaan rajaynaa dil raajo inuu shalay muhiim badan ninkan u xiro bacalimiis u sameeyo korbad xitaa hadii la galshwaar rabo ninkan soo u socdo laakiin ma aqaan sidoo u socon doono marka aan soo qaadano Thamud baba waa leeyahay maxaa lagu heestaa sheekadiis maxaa laga dhaa filmku muxuu ku saabsan muxuu ku liitaa muxuu ku fiican yahay dan waa ka sii soconaa saaxiibayaal marka anigu waa xanaaqsanay maanta Nathan ka anigu soo riixay oo dhaha goos balaayo waa goos kale soo bandhig waaba kana filmku waa bariiqda marka anigana waa ceebeysanay caafiyo marka aan xagalna Thamud waxa laga sheegay iyo sida uu yahay ninkan waxa waa director-ka aan ku dhaganay sababtoo in filmkan waxa sameeyay lagu magacaabo Siran Venu waa director well talented filmkii MCA Nani uu sameeyay Fakil Sab waa laba film aan dhulka dhicin I don't know ma aqaan wax nin ku dhaco laba xidig iyo barro siinay wara isla fiirinaba waxa waa Nathan waa kugu dhacday aadaaba ma la jiro marka caafi saaxiibtan waa kugu dhacday reerta lagu ma qoliyaha filimada ka falooda ma kugu dhagan iskama u socon laadahay I don't know laakiin waxa ii muuqata in Nathan biswaay oo hadda kadib aan islaa inuu Nathan film helo way adkaan doontaa highly unlikely waa sida ii muuqato Nathan marka saaxiibayaal wax u raadiyo options kale u raadiyo haduu producer noqonaa cidiisa lacag haysta ma sheegin hadii dabcan wax kale uu haysta ma aqaani waa u haay Nathan ma jirto maanta waa بس ما شركة فيلم أن جود قال نثيم محاول كويس تارت شركة أن سلا أرجنا كدي بانك السعنة نثيم وحلا سحب يا الفيلم كان وحكومة تلا قفض عن لنا عيار تتوجه شدي وحاسكو في عن ترتان تريننج كخيب قادنا يو ودله وجو وحورجنا بلاد الذهب كأنه قاتو جول لمدى الكجامبيونشيب لكن نكا مركز توسلا وحتوجب أركتدي سنك أرجع كلية براكتيسكو وكلية صاحب كيسا لو ما عاب تشترا أو فرشاب بلاما دور كانوا مثلا فرشاب بلاما وحوليه ورنيهم حكا قلدن نين وحات الشاب أو فرعون ساسة مركز توجه شدنا قطن كل دتاي وحوليه نيو حسوسه هره ugu jiro le xanuun ugu haay flashback hore ah sida doorka jay iyo kuma tala wuxuu leeyahay walaashii iga yar doorka ay matalayso gabadha lagu magacaabo isneha latha ay kuma talaysaa laakiin walaaya walaashii iga yar aabeeya iga tagan ayadoo yar wuxuu qalad iga dhac aawid ayaan ku waayo xilli miyiga la joogay ilaa hadda markuu wuxuu xanuun waxay ugu heesaan caadi ah sababta walaashii waxay iga dhigtay sida inaan gabadhaydo kale inay tahay aad ii jecleedo dhahay waalido ii aragto marka qalad aan nolosheeda mar galay aan ku waayo dhahay sadartay marka xasuustaas wali igu taagan uu leeyahay maxaan wax toogtaa maxaan tartan galay uu leeyahay sadartay marka saaxiibkiisa wuxuu leeyahay war soo baxuu leeyahay aan raadinay cidi laga yaabo inay heshid inkastoo hadda nin weyn aad tahay andara baradhashay ku wareegaan dhankaasi talugu markii dambe address wuxuu helaa walaashiisa helaa soo u raadinaa magac web iska bedeshabo oo waxay la baxday dabcan sida hadda muuqata jansiya la baxday dawladda u shaqaysaa waa government officer waa sarkaal dawladda ka tirsan waaye kadib wuxuu la kulmaa iyadii uu arkaya iyo nolol sameystaygeedii faraxsan wuxuu isleeyahay marka hadda isku sheegtid ama walaasha ka cararta si adarta isku ma sheega si kale isku baraya markuu si kale isku baro wuxuu ogaan dhinaca kale wuxuu ogaanaya walaashiis oo hadda la baxda jansi in halis badan uu ku hanin ganacsade businessman oo oo corrupted oo ganacsiga oo musuqmaasuq ku caan baxo lagu magacaabo agarwal doorkan waxa matalaya Suraf Sajdeva ki qamarjigi ku jira filimka Animal oo Bobby Doll la socdo in burburkii oo Bobby uu hadla wax ka soo turjumay kaasa filimkan laadarka ah oo raba inuu walaashiis dilo sadartay marka Nathan wuxuu go'aan ku gaaray doorka Jay asoo matalayo inuu walaashiis badbaadiyo asaan isku sheegeen ma u suura galaysaa hadii uu ku guuleysto howlahan bacaan ninka awood badan businessman-ka intuu ka galaa ciyaartii ma ku laaban doonaa waxaas ayaa loo dabcan filimka loo daawanaa waxaa la leeyahay marka analyze marka la fiiriyo Thamud concept ahaan waa brilliant xiriirka wiil iyo walaalka dhaxay khilaafaadka isku soo laabashada not bad muxuu reerta lagu hore u sameyn jiray laakiin director-ka caanka lagu magacaabo Finus Siram waxa leeyahay qaabku sheekada u dhigay fakta hore kaliya fiicanta second half ka dambe aad u liitaa angle-ku waxa leeyahay ciyaarta arjarka uu soo galiyay waxa inuu sii wado ma sii wadin sidoo kale waxa leeyahay emotionka wiil iyo walaalka dhaxay bilowga hore xoogaa fiican xasuus ahaan sheeka ahaan qaybaha dambe ultimate strong ma ahan filimku waxa leeyahay marka Nathan Jelinkiis waa iska okay laakiin meelo badan oo struggle ku iyo la daalacada wadaash aqbali karin marka qaar xitaa filimku waxa leeyahay angle-ku ku socday xiisihii kulli weeyna taasoo keenaysa marka in filimkan uu bariiqanayo ugu dambeyntii waxa Nathan marka wuxuu la imaaday normal acting inta badan Nathan waxa markasta filim kasta uu jilaa juhdi uu bixiya karakterkiisana si fiican u jilay markuu miyiga joogo waliba caadi ma uu dagaalamayo laakiin waxa leeyahay wadaashka ma badan gabadha lagu magacaabo Laaya
door wixii qaadatay adag oo walaaltinimada muujinayso iyo horumarka ay gaarayso dhinaca kale tan Suraafsa David Ladark filimkan wuxuu qaatay door saameyn badan doorkiisa si fiican loo qoraa leem iyo sidoo kale markastoo shaashada soo gala saameynta uu leeyahay laakiin Nathan ciyaartiina waa ka soo tagay meel fiican kama gaarin hadafka walaashiis 100% waxa la dabcan si oo very engaging director kuma dhigin walaashiis difaaco waxyaabaha la qaranayo wax la fahmi karo waay adi filimka bottom line wuxuu soo biishobanaysa marka Thamood waxa la waa filim kale oo niyad ku gelina poor writing qaabka sheekada loo qora keenayso saadarte waxa la marka fursad weyn ayaa dhaaftay Nathan fanka talugu oo baahi badan ka jirto xilliga samarkan film weyn lahayn action package waxa la isdaa avatar laakiin hadda nuxurka emotionkina waa ka maqan yahay sheeko strong ma lahan saadarte marka laba xidig iyo bar 2.25 saddex xidig hal meel bisa arka marka Nathan walaalo maxaan ku sameeyaa marka saas dil ugu galabo caafiye marka Nathan idinka ay ku soo wareejisay aragtinka yeesha waxaan rajaynayaa in sheekadan sida filimka loo liga dadka inta iska ilooban aysan akhrin oo shaleemada aadan weekend fiican u qaatay taasan ku rajaynayaa min Nathan mac salaam